السلام عليكم صاحبيال مeel kasta dunida ka joogtaan bal saaxiibayaal ku soo wada ciyaaraha iyo warka ugu dambeeyay Kamal Daariga waxaan soo qaadan doonaa kama dambaysta final cup maanta gobolada maamul goboleedyada la soo gabagabeynayo waxaan uga doonaa arrimihii ugu dambeeyay ciyaarihii Afrika oo siyaab la u soconayay kuwii Aasiya xaaladii ugu dambeeyay kala iibsiga ee soo xirmayay iyo min xaaladaha Barcelona iyo guud ahaan tiimyada kale waan u eegi doonaa min Liverpool iyo Manchester waxa ay ciyaari waxyaabaha laga leeyahay iyo waxaan eegi doonaa min kabiirkii Messi ahaa oo isaguna ciyaaraya caawo indhaha lagu wada hayo saaxiib yaan nooc mudo subscribe ka noo saar ku channelka cusub ku jiray share iyo like tan isku dirka saxabka ciyaaru jecel barnaamijkeenu gaarsiina waan islaamay saaxiib yaal bal ciyaari baan eegi doonaa inta barnaamijkeenu guud galina aanu duceen walaalahena inuu ilaahay dhibta ka dul qaado waa Falastiin kuwaas oo xataa caawa ciyaari doona koobka maxaarday Aasiya 16 markii ugu horeeyay u soo baxeen xataa maalin waxay markii ugu horeysay ciyaar ay badinayaan waxay maalin sheegeen in ay ma taqaana ay Bruniga ciyaarayaan iyagoo maalmo loo soo sheegayo dadkoodii oo dhimanaya caawana waxay la ciyaarayaan waaweynka khadar bay la ciyaarayaan oo ku u wacd tartankan ah martigliyaashi ah waa Bruni laakiin wax walba ka suurtagal Falastiin waxay rabaan caawa khadar guul ka raastan bay doonayaan xataa Ciraaqi Jordan baa ciyaaraya marka nasiib wacan baan leenahay runtii waka xilli xataa xalay ay dabaaldeg weyn ku dhufteen wadanka maxaarday Pakistan oo isna uu garaacay Imaaraadka garaacay Imaaraadka ugu Dubai weerar Dubai bay garaaceen runtii iyagoo qiimeynta ka jooga 106 dunida bay waxay garaaceen Imaaraadki marka wax kasta waa suurtagal Soomaaliya maanta waxa la soo afjaraya ciyaarihii maamul goboleedyada ee muddo soo socday runtii waana ciyaaraha ugu faniska badan weeyaan ama ugu taageeraha badan loogu jecel badan weeyaan ciyaarahan xitaa waxa todobaadkan runtii يعني ما تخان أمانو نسوا جديد مدحينها فيفا إيفانتينو أو شيء رنتي إن عيارها دولة جولة الصومالية أي كسعدان قاب قروح بدن أو هي ترتن أن عادي هين كنت المعمى إني قيب كيهن عيارها إما كود دنيا كسرعني سدا كوا أفريقيا بنيشن إلا يكوا آسيا مركا وكنت المعمى عيارهن عيارو أن عادي هين كوا دولة جولة ديو هذا الصعونية mid kamid ah kuwa ugu cajiibsan buu ku tilmaamayaayo markaad u fiiriso sida garoonka la isugu iimaanayo iyo sida loo wada xadreynayo ama loo wada xadreysan yahayba marka kulli maanta ciyaarey soo gabagoobayaan insha Allah runtii hanbalay baan dhihi doonaa cid walba ku guuleysata finalku wax walba waa suurtagal maanta Galmudug iyo Hirshabelle anu intaan Bruniga garanayo Bruni waa nacalabo ciyaaruhu ka horna malahan waxa weeyaan yani ciyaaruhu kor way jiraan oo cadaan baa jira laakiin mashi cid ba u cadaan karta laakiin ciyaaruhu marka gudaha la isugu tago marmarka qaar fikir ama sawir aadan hore arkin baa laga yaabaa inaad ku aragto ciyaarta marka la isugu tago gudaha maalinba waxa dhici karta xaaladdu inay madoogaan karto marka taas waxay ka dhigantaa warkii waxay ka dhigan yahay cidna maanta finalkan wax walba waa suurtagal waa laga yaabaa ciyaarta koor in uu cadaan ay jirto balse waxaan ku leeyahay Bruno intaan ka garanay waa nacalabo geedkan u jeedo inaba caadi ma aha wixii aad filaysay wax ka duwan inaad aragto baa laga yaabaa marka ciyaartu bilaabato Galmudug inaba caadi ma aha waa team khatar badan oo gool liskiisu fiican yahay Hirshabelle inaba caadi ma aha waa team iyana ma taqaana runtii difaacoodu fiican yahay Galmudug runtii waa mid kamid ah maanta waa loo saadaalinaya inay u cadcadiin tartankan laakiin waxaan wali qabaa Hirshabelle waxba wada wixii meesha Hirshabelle keenay iyagoo hal gool wata intaas wareeg soo wada dhaafay kaliina tartanka hal ninka tartanka dhan hal mar guuleystay wareeg walba soo gudbay finalka jooga asagoo xataa waxba wada kolba maanta waxa leeyahay marka ciyaarta maanta waxaan qabaa ciyaarta 90ga horta waa Benoni 9 kala sida la saadaalinayo waxa ugu cadcad waxa ugu cadcad Galmudug Galmudug marka waxa weeyaan 90ga inay wax ku raadsadaan hadii ay 90ga wax ku weyso kooxda ugu cadcad ciyaarta waa laga yaabaa oo waa loo yaabaa in laga badiyo ku dhowdahay haday baashu gaarto penalty iyo wax nooc ah marka wax isku day doontaa Galmudug ay runtii inay wax walba u sameeyaan sidii ay gool ku dhalin lahaayeen oo Hirshabelle ku gaari lahaayeen laakiin Hirshabelle qudoodu laba midba way doonayaan maanta mid waxay tahay runtii maanta oo kale inay bahasha ma taqaan adkeeyaan haday gool heli karaan ay ku helaan qaabkii kolba Eder oo kale u baahan tahay Hirshabelle maanta Eder ma taqaanin dhalinyarada u ciyaarayo Eder waxa weeyaan
weeriyahan lama filaan noqday ee meel ka soo baxay habeen Portugal Faransiis ay la ciyaariyeen Faransiis loo saadaalinay koobka oo Ronaldo xataa dhaawacmay banaanka isaga ooynaya habeenku tababarha noqonayo Ronaldo banaanka ka qeylinayo Eurogi bayaan iska ooyaya baa weeriyahan iska soo geliyay oo dadku wada garanay malakasay ah ya waxa weeyaan oo aan la garanaynba ninkan yaaba idil iska soo galay buu iska gamay waaba dhalatayba Eurogan waxa qaaday Portugal baa qaaday iyadoo ciyaarsi u caday Faransiiska oo Faransiis lagu hayo oo Portugalkii xataa Ronaldo ka sii dhaawacmay oo xaaladda xun tahay Bahiro meesha ka soo baxay idarkaas maalintaas aan baranay maalinta noogu dambeysay cid markii ugu dambeysay meel lagu sheegay lama hayo ninka waa dhumay meel lagu ma sheego marka waxay u baahan tahay maanta Hirshabelle labo inay hesho idarkeeda ninka ciyaartan iyadoo la leeyahay baasha galmudug weeyane intuu iska soo galo ama ku jiro ciyaarta ku soo bilaadaba hal shootkiisa ganta ciyaarta ku badiyaan ama waxay u baahan tahay baasha inay darbajisaagi ku fiican yahay goorada inay baasha goorada gaarsiiyaan galmudug ku soo hartay waa inay 90 gool ku haystaan oo 90 ku badiyaan hadii kale khatar bay galiyaan ama calafkooda iska qaadanayaan markay penalty gaarto runtii nasiib waxan baan leeyahay dhinacyada maanta ciyaaraya labada dhinac kulay waxa weeyaan waka كل وحي كسو كردha stadiumka u tagayay saacadan baan la hadlayo laga yaabo waaban joogaa insha Allah hadii wax dib dhicine ya iyo tabinta tooska runtii oo aan maanta halka aan u joogo runtii tabinta tooska ah ciyaarta finalka ee labada waaweyn ee markii ugu horeysay midkood uu koob ku guuleysanayo magaalada Galmudug iyo Hirshabelle oo aan tabintii tooska runtii maanta halka ka soo cimamadayaayo bal waka wixii ku soo kordha YouTube-keena ilaa Facebook-keena wixii update keli doontaan waka ilaabi karti runtii in ciyaartoygu ciyaaraya ay ku ciyaarayaan maanta banqaadi waaweyn Hirshabelle wuxuu yahay wiilal yow koobku noo soo qaada gabar guri iyo beero aan isku siinay waxa adduunka isku jibinayo oo isku dagaalo intaas la baadil isku ka daro koola kale Galmudug waxa la yiri hanti baa la ku fardhinaya dunidana waa la geenayo yaa fiisina naga qabna waxa yiri reer maxalligay dadka dibadda reer Galmudug baa sida ka yiri inuu runtiyo marka waan sugnaa galabta wixii meesha ka dhacay balan qaadida hadii laga Nasr baa la reebay ciyaarihii Africa Nation waa uqba ku dhacday wadankii Maxamed Saalax isagu waa kii hore ka dhaawac hore ugu dhaawacmay wadankan yaa waxa weeyaan iyana way soo bixi waayeen Gregorial baa lagu garaacay xalay oo waxa garaacay Congo badan waa darsaday Congo ama Masar garaacayso oo ah wadanka ugu badan tartankan ee Africa Nation banooni nacla abuuga marka banooni ya adan sheekadeedii hore ugu laabto dib ciyaaraha maanta dhacay magaalada banooni nacla abuuga banooni ma la saadaali karo wana sababtii ugu yiri markay ciyaarta dhamaatay finalka loo soo gudbay maalintii Galmudug ay ka badinaysay Banaadir ya aan qolka isqabanay markay ciyaarta dhamaatay kadib oo aan bixitaanka soo diyaarinayno baan wareystay macallinkii Galmudug aan reedahay maxay leedahay ya wuxuu yiri Maxamed oo bahasha ma sahlana final Hirshabelle runtii ka badin kartaa yani waan jeclay inaan ka badiyo laakiin runtii oo cadcad ciyaartaas iyo waa kala tuuray ma ugu jirto macnaha wasax banooniga qofka yaqaan natiijada ciyaarta ka hor ma ka hadlo wax walba suurta gala banooniga yaqaan wuxuu aaminsan ilaa 90 wax walba inay dhici karto waana sababta aan markasta u raado war ma qaar ku aan calaabo markaas wuxuu igu yiri ma wax fudud ma laha Maxamed meeshan wax sahlan oo easy ma yaalan buuri marka wax walba suurta gal marka Congo ama Sarreebus walaalkiyo Congo ama Sarreebus Kazakhstan xal waxay rabtay Imaaraat naclaabo waa maqaar banooni Ghana iyo qolyo badan qolyo badan Ghana ku jirta iyo qolyahan iyo Algeria ala diray Mozambique adduunka wareegoyin iyo Congo iyo adduunka wareegoyin marka taasna wata marka waxa weeyaan goolahayooda penalty khasaari xil dambe looga badiyay runtii penalty baash u gaartay marka reeyay Maxamed Saalax ee waligiin uu ku guuleysan kara ciyaar Africa Nation masi waana way sii socon doontaa ciyaartiisa 15 sano baan u buuxsan doonta Masar oo ay ku guuleysan koobkan Egypt waa wadankii ugu horeeyay Africa Nation taariikhda yaa ka soo baxay group stage-ka ama kulamada group ka soo gudbay iyagoo laba gool laga dhalinayay ugu yaraan 3 ciyaarood ay ciyaareen yaa ilaa xal laga soo gaaray ciyaarayeen knockout-ka ciyaarayeen yaa marka waan ugu dambeyntii ay hareen mucjisay ku socdeen laakiin waa lagu kala baxay dhanka kale waxa ciyaartii garsooraha Soomaaliyeed uu maamulayay isna Umar Cartan laga soo calaamaday xalay Mohamed Bayo inuu ahaa legendkii gani xalay waqti dambe furdaamiyay iyadoo bahasho ku socoto darbajisa iyo waqti dheer iyo wax nooc ah yaa ninkii furdaamiyay waxa ninka xilli dambe badiyeen wadanka Gini ay ka badin Equatorial Gini oo garsooraha Soomaaliya uu reed si ciyaartoy walo penalty u dhigay iska khasaariyeen
حتى عيارته يرادين أما كبحيني أفريقيا لو موتا قرام كبحيني مرنا كنا مركز حتريت للسي إلا هذا هل جال يهال ريدو بحرونتي بتكمل بنيجي وقف في عناب وسمينية ولو وش شرحين وعد عدي هاي إن عيارها كلنا لوديب ويا هاي بالواقع وركن بنوني وحوين وحنا أركيا أرسنال إني دجال وجود جرتو إني عشتو أرتيتا ورك شيء إن برشو هذايو ورك بدو يحشيان أرتيتا وحلا شيء إنه نكتين كذا أرسنال مركو سيسا كان دماغه ونو برشو كبيرين وربع وحي لهاين وكسو بحي كاتالونيا إن نيكلا ميسي كسو خليجي برش كسو خليجي وكوسي جدو برشلون يا هذا بني كانوا أرسنال كل جريشيش إلى لبكون لبعتن يشان يو حلا شيء إن ونكتين كذا أرسنال مدوي بيني سبالي رونتي مركا أرتيتا وسي جوجيا لابا بخل 8 عيارات وأرسنال معمولي waxay Arsenal badisay 120 jeer waxaana siisa kala soo dhaaf ku dhawaadeen ugu yaraan horyaalkooda wareyn ku guuleystaan tan iyo 2004 marka Arteta wax walba oo dhacay Arsenal kama tagay markuu siisa ka dhamaado Barcelona ma aadayo sidoo kale macallimiinta Barcelona xirnay waxa ku jira Luis Enrique isna albaabada iska xirin suurtagalnimada inuu Barcelona maamuli doono ma diidayo mar waxa la weydiiyay oo ahayd miyaad dib ugu laaban doontaa Barcelona maalin wuxuu Luis Enrique waxaan ka dhahay midaas malaha commentin kama dhiibanayo anuu isleeyahay qolyaan biishi carabta ku soo raacdeen karaan Barcelona albaabkeeda iska xirin marka isaguna booska uu rajeynaya waxa ilaa hadda la tilmaamayaa in ugu cadcad yahay tababarnimada Barcelona marka waxaan ama tirtirinay laga tago Thiago Motta oo ah tababaraha Bologna waa laacibkii hore Barcelona Motta markaad fiiriso Bologna wuxuu ka dhigayo dab yar ma aha laakiin dooqa dabacsani ee amuru ku jirin waa ninka la yiraahdo Rafael Marquez oo ah macalinka daayirka Barcelona ama Barcelona B asagu wuxuu saacad dumay sheegay inaanu diideyn hadii Xavi booskiisa la gelinayo marka ninkaasna Barcelona already ka tirsan yahay biyo ka tirsan yahay inuu qabtana waa suurtagal laakiin macalinka uu jecel yahay madaxweynaha Barcelona waxa weeyaan mataqana ninka la yiraahdo Laporte wuxuu ugu jecel badan yahay ninka la yiraahdo Jurgen Klopp marka xaaladdu Barcelona waa ka taasoo xataa xal hogaankii La Liga xataa loo tuuray booska afraad loo tuuray oo waxa ka soo hormartay xataa Atletico Madrid markay xal laba inuu ku badisay runtii inkastoo isku dhibcayihiin waa laga sareeyay Barcelona marka taas waa taa Barcelona todobaad xun bay ku jirtaa markii ugu horeysay ay todobaadkan 60 sano kadib 5 gool ciyaar laga dhaliyo La Liga Jordi Klopp qodiis waa saacad ugu dambeeyay taageerayaasha Liverpool ay ka yaabsadeen waxaanu kaga mahad celiyay habkii quruxda badan ay ugu soo dhaweeyeen garoonka markii uu saacadii la soo dhaafay sheegay intaan ciyaartooyda xalay ciyaarin FA Cup-ka ay u yiri waan ka tagayaa Liverpool markuu siisan kan dhamaado حتى ويري دب وما صار نقول ليفربول بقى كنا كمان لعبنا حتى واحد كستيد عن سيسكا يو شيء غير هنتي إن وكجمد على ليفربول هبكي حلقة يقول سودوين هنتي وعنو جماهير تقعد صدي أنت كنا من سيسكا إني قرب استغني موجان تيم كيسا سي أو هيستوري إيه تاريخ وسمايو إلى نقول ليفربول أفرلي كوب أي كتر تميسا مركا يوردن وحو حلقة يا بالي هنتي يا هبكي ليفربول أي سو يقول سودوين كرونك أي أتاجرين أنا ما فيلين بداول أنا ما نقعدسن حالي سواحن كي عيارت كسميان سيدو كله يورد كله وحال أركي مركي عيارت بلابني سيو never walk alone يال خالي هسكا بالغ لفتي مركبو وضع إنتي سوي عليك الرواي يا إنتي خبن كرواي وضع من ذكره أن روبرتسون يا وحوي شيء وحي ليفبول كدعي مركي يوردن بو أنكي ساي مقلين وحي خوف كستوى شوقي يا سكوز بحول لي هي قف والبه sidoo dunida oo qofku walba dunida sidoo u shoogay baan inagana u shoognay wali runtii markuu noo sheegay inuu baxayo cidna ma ogeyn meesha ay fiirinayso ama ay eegayso iyo waxay sameynayso yaa marka wuxuu leeyahay laakiin tababaruhu go'aankiisu inuu tixgelina wari balse waa inaan u dagaalana sakinta ka dhiman si aan koob weyn ugu guuleysano wali runtii waa ka ma salaamin fiican ugu sameeyno ma u jeedaa gabadha taageeraha tattoo ku qoratay gacanteeda Jordan 30 وكا دنكان كله مانشستر يونايتد توبرها مانشستر وحو شيغay Rashford inuu talaabo ka qaadi doono Rashford ayaa la sheegay saacadu dib inuu xafladiis u aaday ciyaartii xalin uu ku sheegay waa jiraanka dhamaanin baa haysata ma dhaawacna khanda ay haysa duuma ay haysata inta laga haya dhabarka laga haya buu ka bixi laayay Rashford marka waxa weeyaan teenaag marka wuxuu leeyahay yaa arinta Rashford inoo daayo waa arin noo gaara ana ka taxadir arinta uu runtii aniga halay dawlo aniga ninkaas talaab ka qaadayay وأرين إنه ده حيسون أنا جم كهلايو مركز راشفورد وحلوها هيستا إن وساعدي قدام بيتوبرك ما يصير توسيجي هدنا وحفلة ديني يا مركز وعور طلاب بنك هذايا حلي ألان شر وشيء راشفورد نسكله منه يو وقت يسيق روح بدنا وكله منه يو وحنون سنة هاي حفلة ديس كان بلو كانوا
wiilkan wuxuu leeyahay runtii shaqo diyaar uma ahan waqtigiisa quruxda badnaana sidaa buu ugu ciyaarayaa xilli hoylan xal la arkay inuu ka xanaaqi garnaajo kubadda ku ciyaaray oo wuxuu ka soo inuu soo karooso walow isagoo markiisa dambe uu gool dhaliyay ninka la yiraahdo Hoyland laakiin waxaad arkaysaa Hoyland uu safta gasha kala baxay oo markii hore bariga hore goolasha lama siin jirin loomana baasi jirin markan waa nink waa gubtay markan cid xataa kubadda celin karta ma lahano waa in isagoo loo soo baasaa walow fiirisu garnaajo ugu qeylnay xalay mid kale taageere ayaa soo qoray Diallo inuu ku dulman yahay Manchester United xitaa xal ciyaari FA Cup ilmaha yar la ciyaaray lama safin marka jamaahir taageere wuxuu ku soo qoray bogiis uu leeyahay wari Ahmed Diallo meeshan isaga tag oo uma xushmeynayay hadaan ciyaarti xal lagu safayn ya wiilkan markuu amaha ku joogay Sunderland 14 gool uu soo dhaliyay 42 ciyaarood ya waxaad arkaysaa inuu possession u baahan yahay haduu helana uu ka faa'iideysan lahaa marka taageere wuxuu ku soo qoray burgiisa ya Ahmedow hadii ayaan xataa FA Cup kan ku ciyaarsiinin oo Newport lala ciyaarayo ya uma khalinta buu waqtiga halka ku dhumayso ee kale guriga ku soo inuu Sunderland bay kala jeedaan marka wiilkii laag intuu saaray macna uu leeyahay yani meesha wad ku dulman tahay yani uu kala jeedaa haa waan ku dulmanay amal wala markii dambe uu ka saaray marka ya Ahmed kuma qanacsana keedkiisa kooxda Manchester iyo fursad la'aanta haysata ninkanna waa ninkii xal ciimamatay oo 9 bil kadib baa la runtii goolkiisa ugu horeeyay uu dhalay baa la runtii waari maxay taa waxa ka first goal waa la Manchester United 9 month ya وانا صدن إيكو عيارات أنتوني حالي ومرعشت رونتيو واتي ليابي على أي حال سوق الإبسوق عيارتون وحمانتا كهرسان سدح معلومات 8 ساعات أفر 30 دقيقة iyo 3 iyo 20 ilbirqsi xilligan hadlayo kulay waxyaabo badan ba suuqa dhici doona kooxaha weyn lama hayo suuqooda sida Chelsea oo kale waxa laga filayaa intaanu ka xirmin inay xilli dambe timaado mooyaane ilaa hadda wax laga hayo Arsenal oo kale waa kooxaha suuqa indhaha lagu hayo Manchester oo kale uma badna wuxuu irteen go'aan xirnay suuqeena Manchester lama yaabo Liverpool in looma yaabo Barcelona waxba xaaladda ku xun hadana saas wax ma qaadan karaan suuq bishan bil yaab leeyahay oo galab buu ahaa Moise Kean oo kale imku wata Mondo Mortabeltan waxa la joogay Atletico Madrid jawaab cafan u maraya Trippier oo kale wuxuu leeyahay Newcastle shida iska sii joogay kadib markii uu suurta galin inuu aado dhanka Bayern Munich wuxuu leeyahay wax badan bay qabteen abaal baan u hayay Newcastle Angelino waxa la sheegay inuu ku sii dhaweeyay dhankan iyo kooxda kubadda cagta ee Roma عاو الهلال iyo Inter Miami ba ciyaari doon Inter Miami waa ciyaarta ka horeysa ciyaarta Ronaldo Messi ciyaari doon kooda bisha عاو الهلال baa ciyaarayaan Inter Miami waa tijaabo adag الهلالna waa loo buuxa rag badan baa jooga marka Inter Miami caaw arki doon hadii ciyaartaas iyo kabta sii gashay karaan 9 kabin bay ciyaarta soo gali doontaa waa runtii ciyaar xisaab badan iyadoo Messi saacad ugu dambeeyay la hadalhayay wuxuu uu ku yiri gool hayo hadda ka hor intuu 3 ka dhaliyay xulkiisa Argentina kaga badiyay 7 gool waxa El Roy gool hayaas waa yaabay la hadda Messi intuu iimaado wuxuu yiri Fernando si goolaha intuu Messi dadka ka dhalin gool badan ka badbaadiyay Messi way xushmeeyay uu leeyahay cimaamaday anu xataa waan yiri Messi ma intuu qol kugu iimaado adiga Fernando ku weydiisanay soo Messi wuxuu rabay inuu goolaha dhiiri geliyo jawaana laga dhaliyay macna oo si waxda 3 ka dhaliyay wuxuu yiri Messi baa iimaaday wuxuu yiri si fiican baad u ciyaartay goolaha fiican baa tahay kadibna markuu iga tago Messi wuxuu yiri ya Fernando Messi kartaa waaya yiri Messi ma ana Fernando weydiisanaya ma rewle ya waxaan mooday uu leeyahay Messi waxaan isdhahay war hadda Messi Fernando ka doonaya ya waan siiyay aniga shaqsi waxaan isiri ya man la fahmin laakiin wuxuu Messi Fernando ku sameyn doono ya balse waxaan markii dambe Argentina ba waxa ii sheegeen Messi inuu qaato fanaanadaha ya macna weyn ugu fadhiya oo uu beel ku xariisto marka fanaanadeeda qiimo ugu fadhiiso leeyahay Messi goolaha kan maadaama uu leeyahay runtii aan kamid ah goolayaasha Messi uu ka dhaliyay laga yaabo leeyahay fanaanada wuxuu qaadan uu ka dhaliyay leeyahay goolkiisii boqolaad laakiin Messi wuxuu leeyahay way cimaamaday runtii oo ya hawayaan kama malaysanin ninka weyn inuu umada ku tuuri doono علي حلبيش يقولوا حالي حتى الله بكور من الله لقلي رنتي وبراجع بيقش رنتي حل إنتر وكان كسيري آي سي لوصلين مارتينيز ولا يقول كتوم سجالة السكان سيري نتقلي